daawadayaal waxaa hadda barbarkayga taagan agaasimaha komishanka xakamaynta aidiska Axmed Cabdi Ismaaciil agaasime ugu horeyn ku soo dhawo telefishinka bulsho bal waxaad warbixin kooban naga siisaa shirkani lagu horumarinayo qorshaha horumarinta qaranka Soomaaliland door nooceeya ayuu ku leeyahay komishanka xakamaynta aidisku bismillaahir rahmaanir rahiim wad mahadsantihiin bulsho TV waan dhawahay horta qorshahan waa qorshe qaran oo loogu talagalay in hay'ad walba iyo wasaarad walba iyo si kastoo dawladda ka tirsan inuu qayb ka yahay kuna darsado waxa uu doonayo 5 sanadood inuu ku soo darsado qarankan taali ajligeed komishanka qaranka ee xakamaynta aidisku isaguna waa hay'ad qaran oo dawladeed oo iyadna qorshaheedii leh oo rabta iyadna inay ku darsato wixii 5 sano ay qarankan ay ugu adeegi lahayd kahortaga xakamaynta iyo daaweynta iyo daryeelka xanuunkaasi aidiska marka annagoo salka saarayna laba arrimood mid waxa weeye istaraatiijiyadii noo dejinayay 3 sano ahayd iyo qorshayaasha sanadlaha ah annagoo ka duulayna annagoo tixraacayna barnaamijka qaranku uu leeyahay ee la xiriira xakamaynta aidiska iyo daryeelkiisaba waxaanu ku darsan doonaa barnaamijka aanu aragno 5 sano inaan fulin karno waxana uu tari karaya xakamaynta iyo daryeelka xanuunkaasi ayaan ku darsan doonaa soo kalena waxana laga rabaa ka hawlgalkiisa iyo fulintiisa 100% marka waxa khasaba inaan la nimaadno qorshe aanu qiilo hayno oo aanu fulin karno oo dhaqaalana aanu heli karno oo 5 sanadood hadii lagu xisaabtamana xisaabteedii iyo fulinteedii iyo magaranaysaayay meelmarkeedii aan ku jawaabi karno ayaanu ku soo darsan doonaa insha Allah shirkani mise ashuu soconaya horta shirkan waxa soo qabqaabisay wasaaradda qorshaynta oo ah hoggaanka hawshan wadaya waxaan oo dhan qabanqaabadeeda leh responsibility iyadoo iska leh uu soconaya oo wadigarkii wiigi dhaweyd baa waa tira soo jeediyay kan wala soo jeediyay sabta dib baa loo balansan yahay kolba jadwalka ay la yimaadaan inaga codsan inaan ka soo qayb galno ama aan ku soo darsanana taana waan adeecnaayo waan ka soo qayb galnaa waan ku darsanaa marka iyaga kulli ka jawaabi kara inta socon doono iyo inahay ay rabaan inay ku meel maraan maxaa leedahay waa laga bedeli karaa qorshaha horumarinta qaranka horta waxa weeyaan waa mid cusub wax laga bedeli waxa koo wartan in kii hore wax laga barto oo NDB2 waa soo dhamaaday 10 baa laga baranaya waxa kale oo laga bedeli waxa weeye waxa jira portfolio-yadii xisbiga kulmiye iyo aragtida madaxweynaha waxa kale oo jira siyaasadka qaranka oo adeegaya horumarinta iyagoo kuwa la adeegsanayo waxa weeyaan waa qorshe cusub marka complete waa inuu kii hore ka duwanaada ka horumarsanaada ka xaqiiqsanaada ka fududaada xisbiyada mucaaradka gaar ahaan xisbiga ucud inta badan waxa uu ku dhaliilaa in xukuumaddu wax qorsho ay leedahay aanay jirinba taayada maxaa ka leedahay soo qorshe la sameeyay ma ugu jira qorshe NDB2 baa soo jiray NDB1 baa soo jiray istaraatiiji plan bay leeyihiin wasaarad walba iyo hay'ad walba haddana iyagu aragni tagaan soo arkaan baahidin male laakiin saddeed way jiraan qorshe oo qorshe xisbiga uu jira kulmiye uu leeyahay oo barnaamij uu leeyahay kuwaas laga soo dheega qorshahan waa qorshe qaran way og yihiin inuu jiro laakiin daanu dhalisha ma arag meel ay ka jeedinayaan laakiin haddii ay jirto waa in loo sheego inuu jiro qorshe oo dadkan koobka iyo wadamka la wado oo kii cusbaaya kii hore soo dhamaaday adkaysi studies bartan deena lagu soo jeediyay ku kala ka soo roolin jiray NDB1 waa roolin jiray intaba qorshe qaran buu ahaa oo wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda ay markaa fuliyaan dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududaynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyey in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helayaa adeegga e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland